soo dhawaada asxaabta Wasan Official. Dalka Hindiya waxaa ku arkaysaa lo' leh kaarka aqoonsiga guriga ugu qaalisan adduunka. Barayaasha guurka ka hor talow maxay baaraan? Waxaan halkan idinkugu soo gudbinaynaa 6 waxyaabood oo dalka Hindiya u gaar ah. Inta aanan u guda gelin, fadlan haddaan ugu cusub tahay nagu soo biir oo channelka subscribe saar. Mahadsanid. 1. Booliiska dalka Hindiya oo lacag lagu siiyo shaaribka. Booliiska Hindiya waxay helaan gunno maaliyadeed haddii aysan shaaribaha xirin. Waxaa kaloo intaa u sii dheer inay xushmad, qadarin iyo qiimeyn gaar ah bulshada ku dhex leeyihiin. Dhanka kale, shaaribuhu waa mid ka mid ah astaamaha lagu garto qabiilka Kisana ee dalka Hindiya. 2. Hawada aadka u wasakhaysan ee magaalooyinka waaweyn. Dhibaatooyinka ka dhasha hawada wasakhaysan ayaa jahwareerisay magaalooyin badan oo adduunka oo dhan ah, laakiin weligood ma aysan noqon heerka Hindiya. Warshadaha waaweyn iyo gawaarida oo la isku daray waxay soo saaraan qiiq, taas oo neefta fudud ka dhigaysa mid aad u adag oo aanay awoodin inay neefsadaan dadka deegaanka iyo kuwa dalxiisayaasha u yimaada. Qiiqa maalintii Delhi hawadeeda wasakheeya waxaa khubaradu ku sheegeen inay ka dhigan tahay in qof walba oo degani maalinkaa uu cabay wax ka badan 50 xabbo oo sigaar ah. 3. Diimaha adduunka oo dhan. Haddii dhagaysto shacabka Hindiya ay 80% yihiin Hindu, haddaba ma ogtahay in dalkan ay ku wada nool yihiin dhammaan dad haysta diimaha dunida ka jira ama kala aaminsan. Sidaa liajligeed waxaa macquul ah inay hal meel ku kulmaan Muslim, Hindu, Sikhismo, Santal iyo qaar kaloo badan. 4. Guriga ugu qoyska badan adduunka. Qoyska ugu badan adduunka ayaa ku nool tuulo ku taala Hindiya taa oo lagu magacaabo Lim Batwan. Dion Shan wuxuu leeyahay 39 xaas, 105 carruur ah. Ciidan reer baadiyaha dhammaantood waxay ku wada nool yihiin hal sar oo ka kooban 100 qol. Casho caadi ah qoyskan waxaa ku baxa 100 kiilogaraam oo bariis ah, 30 digaag ah iyo 60 kiilo oo baradha. Odaygan oo 72 jir ah oo madax ka ah qoyska ayaa mar walba ka sheekeeya sida haweenkiisu uga ogolaadeen inuu isla guursado iyo sida ay suuragal ugu noqotay inuu hal meel isugu keeno intaasoo qof. Wuxuu intaa ku daray inay tahay caado uu kaga dayday awowgiis oo dhalay in ka badan 120 carruur ah. 5. Heerka furiinka oo hooseeya. Hindiya, boqolkii guurba wax ka yar 2 ayaa ku dhammaada fashil, laakiin taasi waa dhaqanka qarsoodiga ah ee xallinta guurka. Iyadoo badanaa loo maleeyo inay sabab u tahay diin, ayaa guurka Hindiya waxaa loo arkaa midow muqadas ah oo aan si fudud loo gelin loogana bixin. Xitaa guurka sida weyn looga taxadaro wuxuu noqon karaa mid fashil ku dhammaada, balse dhaqan ahaan waalidiinta Hindiya ayaa u doora gabadhooda ninka mustaqbalka ay ka dhiganayso, ayagoo gabdhahooda ka ilaalinaya inay sharaf dhacaan oo dib ugu soo laabtaan guryihii laga guursaday. 6. Hoyga hal abuurka. Asxaabta Hindiya waxay hoy u tahay ciyaarta chess-ka ee dadka xiiseeya ay u yaqaanaan Shatranji game, balse Hindiya waxay ikhtiraacday qalliinka indhaha, isgaarsiinta wireless-ka, fiilooyinka loo yaqaan fiber optic, birta, beerashada suufka iyo waxyaabo kale oo badan oo si wada jir loo isticmaalo sida fadhiga musqulaha iyo shaambada qubeyska. Haddaba daawade arrimahan aan kor ku soo sheegnay keebaa kugula yaab badan? Adigoo mahadsan commentiga noogu reeb. Maca salaamo.